maxay tahay dhibaatada ka taagan degmada Gursum ee gobolka Faafan? Kuwani waa 6 oday dhaqameed oo nasab sheegta beesha Jiiraan Koombe ee degta gobolka Faafan. kuna jiro suldaanka beeshaasi Jiiraan Koombe oo muddo 7 maalmood ah u hoyanaya jeel ku yaala magaalada Mombasa ee gobolka Faafan. odayaashan maamulka gobolka oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Faafan ayaa amray in la xiro oo ay u xiran yihiin kadib markii ay isku maandhaafeen arrin muddooyinkanba ka taagneed tuulooyin hoos yimaada degmada Gursum ee gobolka Faafan. sida aan xogaheeni hore ku baahinay labadan beelood oo ka mid ah beelaha wadaaga gobolka gaar ahaan Jiiraan Koombe iyo Bursuug ayaa xurguf soo kala dhaxgashay dhul ay deganayeen beesha Jiiraan ayay deegaameen horle ku sameeyeen beeshan kale ee Bursuug way ka hor yimaadeen Jiiraanku markii ay maamulku u cawdeen cabashadooda lagama hoos qaadin ilaa ugu dambeyn uu dhiig ku daataalkii sida dhaqanka uu ahaa qolyaha maamulka markii ay dhibtu dhacdo ayay soo kala ordaan iyagoo shirar iyo dib u heshiisiin isugu yeeray beelihii ka hor inta ay dhibtu taagneedna ku eeganayay walow gudoomiyaha Gursum iyo hoggaanka nabadgelyada degmadu ay hawshu dhinac ka ahaayeen oo mid ka mid ah beelaha ay garabka ku hayeen gudoomiyaha gobolka Faafan iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa tagay magaaladii waxa ay isugu yeereen duubabka dhaqan ee labada reer waxa laga wada hadlay xaaladda taagan iyo dhibta dhacday labada reer oo horay aanooyin u soo kala gaartay ayaa mid kastaaba galkiisa soo furtay oo miiska soo dhigay beesha Jiiraan waxa ay sheegteen in reerka kale ee Bursuug ay ka qabaan 3 qofood magtoodiina aanay weli ka helin walow muddo dhowr sano ah laga joogo dilka xubnahaas balse xilligaas ay beesha Bursuug bixiyeen lacag loogu yeeray rafiso oo ah dabcan 30% magta oo la sii hormariyo halka 70 kale ama magdheertana muddo la isku qabto markii la gaaro waqtigii ballantana lagu kala baxo magtaas balse beesha Jiiraan waxay sheegeen in 3 qofood ee horay looga dilay magtoodii la duudsiiyay kaliya laga siiyay waxaan loogu yeero rafisada oo ah magta 30% waxay fadhigaasi ku sheegeen beesha Jiiraan in iyaguna ay qaadayaan dhabahaas ay jeexeen walaalahood Bursuug ayna diyaar la yihiin rafisadaas oo 30% gudoomiyaha gobolka oo arrintii ay u cuntami weeday iyo odayaasha beesha Jiiraan Koombe ayaa madaxa isla galay suldaankii Jiiraan oo yiri eray uu dhibsaday gudoomiyaha ahaa gudoomiye wiilashayadu fataatiir ma ahan kuwoodana dheeman ma ahe magdheerta hal wada bixiyo ama rafisadaas la kala qaatay xeer noo ahaatee hawsha halka ku soo gabagabay ayuu amray in la xirxiro odayaashan oo uu ku jira suldaanka beeshaasi Jiiraan Koombe waa Cabdimaalik Dayib Maxamed askar ayaa lagu dalbay duub dhaqankii maalin 7 ayay ku hoyanayaan jeel ku yaala Mombasa walow markii hore la damcay in la geeyo jeelka gobolka oo lagu xiro balse ma dhicin oo degmadii ay weli ku xiran yihiin odayaashu waxay kala yihiin 7 xubnood ee ka xiran beesha Jiiraan Koombe suldaan Cabdimaalik Dayib Maxamed Axmed Xasan Deeq Dayib Axmed Cadde Cabdi Ibraahim iyo waliba Cabdi Carab salax balaarane waa halka ay deegaaminta cusub ku sameeyeen beesha Bursuug ee ay ka gadoodeen beesha kale sababtayna gacanka hadalka dhiiga ku daateen santarada Waraabale iyo Santar Magool waa halka ay kala degan yihiin labadan beelood Qadar Cali Shagax oo ku abtirsada beesha Bursuug iyo gudoomiyaha gobolka Faafan waa Qadar Axmed Nuur oo aad isugu dhawaaya lagu eedeynaya inay arrimahan ka wada socdaan kama samarna laaluush loo adeegsaday gudoomiyaha sida aan xogaha qaybtood ku helayno wixii ka soo kordhaa warbixino dambe ayaan ku faaqiidi doonaa idinkeeba